murashax xildhibaan cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo u taagan xildhibaannimada golaha deegaanka ee degmada berbera ahna duqa degmada berbera iyo sidoo kale aadan cismaan xarbi oo isna u taagan xildhibaannimada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Saax ayaa maanta kormeer wacyigelineed ku soo maray degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada ujeedka safarka wafdigani ayaa waxa uu daaranaa sidii ay bulshada ku dhaqan degmada Sheekh iyo nawaaxigeeda uga wacyigelin lahaayeen qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka 2021 oo dhawaan la filayo inay ka bilaabmaan gobolka Saaxil deegaanada sida diiran loogu soo dhaweeyay wafdigani ayaa waxa kamid ahaa Galooley Suuqsade iyo degmada Sheekh ugu horeyn waxa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka cuqaasha waayeelka dhalinyarada haweenka ku dhaqan deegaanadaasi oo si diiran ugu soo dhaweeyay labadan xildhibaan iyo wafdigani hogaaminayeen waxaan idin sheegaynaa inaan la raacin wixii habow inaga inagu kala dhex ridaya anu waxaan odhan lahaa cid waliba ha ka soo noqoto waynu nahay dad wanaagsan oo jira baynu nahay dad caalimka lagu yaqaanaa baynu nahay waynu ku faannaa reerka tiradiisa nin waliba og yahay oo caaqil keliya leh waxaan nugu wacdigelinayaa dad badan oo heer suuqsada oo aan kaarka qaadan baa jira marka kaarka ha la qaato abdaw cadow shabiye calankaagu taabud noqoy asiis baan ku bariyay caafimaad ku waar abid ha ciishoonin oo cidhib la'aan mudan caleemuhu kaama daataan cishriga ka yimi caleen doogiya barwaaqaan dushaada dhigay abdaw duco qabee dadaalkaagu kuu samee oo daa'im baan ku bariyay kii la doorta noqo dhaqaale kuraas waxaba tira lagu qaybsadaa tirada gobolka u naseexe oo ha la qaato cidda doonto dooro kaarka ha la qaato oo gobolka aynu soo qaadno oo aynu u hiilino waliba reer Suuqsade waxaan leeyahay waxa tihiin deegaanka ugu dadka badan ama tuulada ugu dadka badan gobolka Saaxil wada xuduuda muujiya idinka ugu deegaan badan xaqiiqadii been maaha magaalo ka weyn oo tuulo lagu sheegaa ma jirto dadka soo kaxeeya islaanta soo socon weyda gaari ku soo qaada ilmaha yar cidhibsan dhaha kabuurta saaran ka soo dejiya warkaarka ha la qaato oo ka harsan dadka markaa tiradeenu sida u muuqato iyo tayadeenuba xildhibaanka baarlamaanka waa in xoogga la saaro oo kala horu inaga xumada maanta inaga xumaan xildhibaanka berbera waa ogtihiin waa xeeb haddaan ragga xoogga lahay iyo dumarka xoogga lahay u guntan dee wuu ka hadhayaa oo aynu ka hadhaynaa halkan wixii aanu isugu soo hadhno markaasaannu ka wada hadli doonnaa waxaynu ahay dad la xantoo midnimo lagu xanto odayaashooda ixtiraama dhallinyaradu odayaasha ka dambayso war waxaynu idinka codsanaynaa inaynu soo celinno xantii awalba laynagu yaqaannay odayaasheennu go'aan bay gaadheen cid bay inoo soo xuleen ciddaa aynu ixtiraanno oo aynu codka siinaan gabagabadiina waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey labada murashax ee cabdishakuur maxamuud xasan cidin duqa degmada berbera iyo sidoo kale aadan cismaan xarbi oo u taagan xildhibaannimada golaha wakiilada ee Soomaaliland ee gobolka Saaxil waxaana ay fariin u direen bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Sheekh iyo nawaaxigeeda isla markaana ay ku booriyeen inay ka qayb qaataan qaadashada kaarka codbixinta anigoo deegankii reerka ah Mardiin ma jirin markii hore maanta anoo cod doonaya baan idin aad baan idin salaamaya waxaan filayaa in sidaa ay ugu soo baxdeen si ka badan codka ay siin doontaan kalsooni badanna waan ku qabaa anigu waxaan baan haydeen nin hooyadii u yimi waxba kama hakrato markaa maxaan baan hay maanta nin hooyadii u yimi waa inaynu qaadanaa oo kaarka qaadanaa kaarkaasi boqolaal faa'iido leeyahay faa'iido kuna ma laha boqolaal ma tiro koobi karayno faa'iidada koobaad ee ugu horeysa waxa weeye deegaanka Suuqsade imika aynu joogno marka la qiimaynayo imika MCH baa ku dhisan maxaa dhakhtar ku helaysaa waxaa dhakhtar ku helaysaa inaad dadka tirada intaa leeg ee halkan ku nool yihiin la caddeeyo waxaana lagu caddaynayaa waa kaar wey wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka mashaariicda qiimaynayso meel walba deegaanka waxa lagu qiimeeyaa waa dadka jooga iyo populationka sidaa awgeed maanta muhiimadda koowaad waxa weeyaan dadkan deegaankan degan Suuqsade waa inay dhammaantood qaataan kaarka cid kasta oo qof kasta oo muwaadina
oo gaangaaday inayna waxa laga rabaa inaan kaarka doorashooyinka 2021 oo dhawaan la filayay inay ka bilaabanto gobolka saaxil waa Faysal Aadan Ismaaciil telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Sheekh